siday uga dalbadeen arrintan oo ay uga taliyeen ugana jawaabeen aad iyo aad baan ayaga ugu mahadcelinayay dhammaan muwaadiniinta caadiga ah oo arrintan markay noqdeen ka dalbaday kuwa dalka jooga iyo kuwa dibaddaba aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin in ay taageeraan nidaamka iyo saraynta sharciga ay taageeraan mahad weyn weeyaan. taasina waxayna tusaysaa bisaylka shacbigeenna uu gaaray, bisaylka uu gaaray ay gaareen siyaasiyiinteenna ayay ka mid tahay. waa mahad allah. shacbigana waa u hambalyaynayaa sidaa marka ay u kaceen iyo siay ugu wacyigelsan yihiin arrimaha dastuurka sida uu qoraay iyo shuruucda ay ula socdaan iyo danaha dalkoodana siday ula socdaan. waa arrin ayadana mahad ilaahay lagu celiyo in maaragta alxamdulilah la yidhaahdo in haddii shacbigeena sidaa ugu baraarugay. arrinta xigta aan raba inaan caddeeyo oo aan dhammaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo dhammaan shacbiga soomaaliyeed iyo xukuumadda aan u sheego waxay tahay in khilaafkii ahaa mooshinkii laga keenay kalsooni darada ee kalsooni kala noqoshada in khilaafkaasi u dhammaaday. waxaan ogolnahay oo la ogolaaday in marka mooshinkaasi uu jiro loona baahan yahay tallaabadii habbooneed si waafaqsan heer hoosaadka golaha shacabka in lagu maamulo. heer hoosaadkuu sheegaya in mooshinkaasi 10 beri gudahood lagu horgeeyo golaha shacabka oo ay u codeeyaan oo ay taamiisi ay ka howlgalaan soona afjaraan. saa daraaddeed waxaan ka codsanayaa dhammaan xildhibaanada mooshinka wata in heer hoosaadka ay u hoggaansamaan haddii ay ku roon yahay oo ay marka guddiga joogtadana dhaqso intuu u fadhiisto u soo cayimo goorta taariikhda goorta iyo goorta oo loo horgeynayo golaha shacabka si arrimahan loo soo afjaro. ma habboona in arrintaa ay sii dheeraato waayo xukuumaddiina ma shaqayno hayso oo waxay ku mashquuleen mooshinkan. xildhibaanadina sidoo kale arrimahan inay xalliyaan xalliskii ku mashquuleen. shaqooyinkii qaranka oo xafiisyadii qaranka loo igmaday inay si dhaqsaa u howlgalaan waa danta dalka ku jirto ee waxaan xugsanayaa dhammaan wasiirada inay xafiisyadooda ku noqdaan, xildhibaanadana inay sida ugu dhaqsaha badan sida heer hoosaadka uu ina farayo inaan maaragta aan ku afjarin shareecada islaamka iyo kasukow dastuurkeena kasukow. golahan waxaa lagu hogaaminayaa heer hoosaadkiisa. ha loo hoggaansamo heer hoosaadka sida ugu dhaqsaha badan hala keeno arrintan hala afjaro howlaha qarankana dib ha loogu noqdo. waxaa kaloo aan codsanayaa in maaragta in ciidankan la duldhigay golaha oo lama taabtaanka ahaa oo xasaanada leh ciidanka la duldhigay in laga dulqaado, ciidankii u tababarnaa loo soo celiyo si arrimahan ay u fududaadaan howlihiina ay u socdaan. ilaa hadda weli waxuu ku jiraa gacantii laanta fulinta saanataana ma aha arrin habboon ma aha. waxaa loo baahan yahay in ciidankiisa loo soo celiyo golaha oo magaciisi hawshiisa caadi ay u noqoto. waa laga maarmaan. wixii intaa ka duwan waxaan u qaadanayaa inay noqonayso ujeedo qallisan in laga leeyahay iyo magaciisi shuqul magaciisi jabhadeyn oo kale looma baahna. waxaa loo baahanya in saraynta sharciga loo hoggaansanayo. dhammaan xildhibaanada waxay ka markhaatiyiin xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka iyo shacbiga soomaaliyeed waxay ka markhaati yihiin in aan intii muddadii aan hoggaanka golaha shacabka soo hayay baarlamaanka 9aad iyo haddeertan inaan qabtay oo aan agaasimay isbedello oo madaxweyneyaal ilaa 3 isbedelaysa ayaa soo maamulay. madaxweyne walba kii guulaystay iyo kii laga guulaystay oo gacantiisa haystana albaabka ka baxay. nidaamkaa aan soo gaarsiinay iyo daafurnaanta aanu samaynay iyo haddii alkuroya eexla-aanta iyo magaciisi goobjoog loo yahay markhaati loo yahay aan kusoo maamulnay intii baan rabaa. aniga kuma imaanin xoog, cod baan ku imid, cod baan ku fadhiyaa, cod baana ku tegayaa. saan horeyda ku sheegay shaksi baan ahay. wixii danta qaranka haddii ay danta qaranka ku jirto inaan meesha ka dawaa ka degi lahaa laakiin iima muuqato. saa daraaddeed waxaan usoo taagnahay sharciga in la ilaaliyo, codkii la qaado, golaha la geeyo, sida heer hoosaadka uu yahay loo hoggaansamo. wax intaa ka duwan waxaa weeyaan jabhadeyn baan u aqaanayo. waa arrin aan habbooneyn. dalkana kuma habboona, madax ahaanna uma habboona, shacbiga sharaftiisa iyo sumcadiisa uma habboona, heybadda baarlamaanka uu leeyahayna uma habboona. mar kale waa idin mahadcelinayaa. waxaan u mahadcelinayaa aan aad ugu faraxsanahay
wacyiga soomaaliyeed meesha uu soo gaaray bisaylka siyaasadeed bilowday danqashada dal jeceel iyo wadaninimada ay maanta ku abuuratay soomaaliya meel kastoo ay joogto ayaa iiga muuqatay mahad gaar ah ayaan ma gudi karo abaalkiina laakiin waxaad gudateen waajibkiina sidaa oo kale loo baahaya markasta markii danta guud ay timaado inaan la aamusin ma jiraayo intii annaka meesha aan joogno waxa aan doonayna waxaa waye qof kastoo muwaadina qof la afjigi karaya ma jirto dadkaa wax qorqoraya oo meelaha wax ku qorqoraya ha ogaadaan aakhiri adduunya in loo qabsanayo mas-uul ay yihiin waxa ay qorayaan beenta iyo marin habaabinta ay qorayaan ha ka daayaan ummadii aan la marin habaabin shacbiga lama khaldi karo runtu way soo bixaysaa qofkii been sheeg waxaas abuuraya xasiray ku noqonaysaa shaksiyadiisu ayay baabi'inaysaa iska jira waa ammaano qalinka iyo raadiha aad haysato waa ammaano oo alla ku weydiin doono ee waxaad sheegtaa runta sheeg beenta ka fogo ugu dambayntii waxaan dhammaan shacbiga soomaaliyeed iyo aan ka codsanaya khaasatan culamaa diinka aan ka codsanaya inay sujuudda ilaahay noogu baryaan in dalka iyaga ilaahay noo barwaaqayo amnigana siiyo in maartaad horumar inaan gaarno alla hala baryo alxamdulilah ha la yidhaahdo dalkan waxaa ka mudan alxamdulilah la yidhaahdo shalay meeshaan joogna fiiriye maanta meelaan joogana fiiriye marka ma aha waxaasaa maqan kaliya la yidhaahdo alxamdulilah waxaasaan ku jiri jirin waa ka soo baxnay inta kalena rajada lagama quustay rajada alle lagama quustay raxmadiisa hala baryo sujuudda ha loo duceeyo dalka aan shaksiga muwaatinka soomaaliyeed iyo dalka aan isku xirno dal jecel aan bilaawno dad maaha shaksiyaadka waa baxaya waa joogaan waa baxayaan ku kala imaanaya dalkan wuxuu ku harayaa jiilka soo socda siiba waxaan la hadlayaa dhalinyarada timo madooga ah inta garmadooga ah waxaan rabaa inaan u sheego waxyaabaha dimuqraadiyada iyo xorriyadda aan ka shaqaynayno iyo sharciga saraysa aan ka shaqaynayno annaka waa duqoomay idinka waay waxaan ku dadaalayna in maaragtaa idinku barbaarino inaan maaragtaa dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina aad ku ilaashataan waxaad ku ammaanin lahayd waa waxaan ku dagaalamay waxaad yeelaysaan yaan marna laydin duusin dalkiina dalkiisa yaan laydin duusin aad iyo aad baad umahadsantihiin mar kale waxaan u mahadcelinayaa hadalka sare iyo golaha shacabka iyo xildhibaanadiisa waan ku kalsoonahay waxaan kaloo u mahadcelinayaa culamaa diinka iyo dhammaan dhalinyarada soomaaliyeed haween iyo rag gabdhaha dhammaantiin waa ku mahadsantihiin la socda arrimaha maamulka maaraynta iyo siyaasadda lagu maamulayo dalkiina yani tallaabo oo la socda meesha dalkiina ay jirto ogaada aad iyo aad baad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullah mudana guddoomiye waxaan rabaa hal su-aal inaan ku weydiiyo saacadii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa la isdhex marayay warar sheegaya inaad iscasili doonto marka wararkaasoo saacadii lasoo dhaafay